nin isaga oo hurdaya shaqaystay lacag gaaraysa 16,000 oo dollar. nin toos hawada uga sii daaya muuqaalada maadayska iyo madadaalada ah ayaa hal habeen gudihiisa ku kasbaday lacag dhan 16,000 oo dollarka Mareykanka ah kadib markii uu dadka u sameeyay barnaamij ay lacag ku bixinayaan si ay isugu dayaan in ay hurdada ka kiciyaan. inkastoo muuqaalada noocan ah loo adeegsado in lagu baahiyo ciyaaraha kombiyuutarka iyo taleefanada iyo geemamka telefishinka lagu xirto, ninkan oo lagu magacaabo Asian Andy ayaa la yimid fikrad kale oo uu muuqaaladan lacag uga samayn karo. noocan ciyaarta ah way fududahay, isagu wuu seexday. dadkana waxaa fursad loo siiyay in ay hurdada ka kiciyaan. qof walba oo isku dayga sameynayana waa in uu ku soo galo lacag cayiman. horey waa loo sameeyay arrimo noocan ah, laakiin Andy wuxuu sameeyay qaab uu barnaamijkan lacag fiican uga sameynayo. daawadayaashu waxay isla bogiisa ka iibsanayaan shanqaro sida muusig, cod dheer, dhawaaqa eeyaha ama qoraal kor loogu aqrinayo cod sare. dhammaan shanqarahaas waxaa loo adeegsanayaa si isaga looga kiciyo inta uu hurdayo. ninkan 26 jirka ah oo YouTube ku leh in ka badan 1 milyan oo subscribers ah ayaa sheegay in muddo 7 saacadood ah ku shaqaystay 16,000 oo dollar. muuqaal uu arrintan ku sharxayay oo uu soo duubay ayuu Andy ku soo daray waqtigii ay wada qaateen isaga iyo taageerayaashiisa. waxaa la arkayaa isagoo marar badan la kiciyay 7 saacadood gudahood, isaga oo hurdada looga carqaladeeyay shanqaro kala duwan, muusig iyo hadallo kaftan ah oo qeylo ah. dhammaadka muuqaalka ayuu ku soo bandhigay sida uu ula fajacay lacagta badan ee ay taageerayaashiisu ku bixiyeen si ay hurdada uga qasaan. waa wareey, waa mahadsantihiin, ayuu ku yidhi dadka ku taxan channelkiisa YouTube. waxaana la arkayay isagoo dabaaldeg awgiis jeexjeexaya funaanadii uu xirnaa. Andy wuxuu sheegay in lacagtii ugu badnayd ee muuqaal hurdo ah lagu soo xareeyo ay ahayd 6,000 oo dollar, laakiin hadda uu dhigay taariikh cusub.